dadka danyarta ee ku nool magaalada Gabiile ayaa ka deyriyay xaaladooda nololeed waqti lagu jiro jiilaal madax dadkaasi danyarta ay ka muuqata diif oo ay qaarkood madaxa ka jiran yihiin ayaa sheegay inaanay ka warhaynin maamulka degmada Gabiile anu waniga ma kixi karayo tawadan ku siqay kolkan halkan imanay qarqarka damban ku soo siqaa ilaahay darti yana halka u taagan ilaahay darti dad mali dunya mali wala mali ma socon karayo ma toosay halka wata la soo dhigay la soo jiiday Raaxa Xuseen Rooble oo ah haweeney indhala ayaa sheegtay inaanay war ka haynin maamulka dawladda hoose isla markaasina baaq u dirtay madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxa weeyaan dad waxa jira aan waxba haysan oo cidina ogeyn allaha boqor moojaan bili aadana aan ogeyn allaha boqor moojaan ayaa jirta waa dadkii aad ku faani jirtay waa dadka imiga doorashada ka sugi jirtay aad ka sugayso waa dadkii markii hore ku soo codeyn jiray waa dadkii heerka ku soo gaarsiiyay madaxweyne waxaan kaaga baahanahay oo halkan ka sheegaynaa in dadkaaga hoos u eegto oo kii gaaloon iyo kii kaleba adeegto oo maxay hayday dadka masaakiimaha ah toos u eegto oo ogaato oo macnahooga ogaato oo dadka u soo diraysa dad muhiim oo daacad ay noqdaan ayaan madaxweyne ka rabaa waxaan doonaynaa kale Jamhuuriyadda Soomaaliland markastaba way salaaman tahay go'aankeegana way ku salaaman tahay qorbe haduu joogo haday Soomaaliland joogan inay dadkooda daciifka ah eegaan markastaba ogaadaan markastaba ya waxaan waa wax laga tagayo adduunyada wax qiimo amale waa wax aakhiro kii la soo baxaba oo maxay hayday u fiican marka madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan hooyooyinka maxaan ku raay culimadiinka maxaan ku dhalinyarada waxa weeyaan dadkooda masaakiimaha ah ee dhulka yaala ee allaha boqor ma cid kale oo ogeynaan jirin dadkooda in hoos eegan Jamhuuriyadda Soomaaliland maxay ka dhisan tahay haday dadkooda eegi waayaan sidoo kalena hooyo kamida dadkaasi dhibaataysan oo haysata wiil ka jiran maskaxda ayaa sheegtay in wiilkeeda loo diiday isbitaalka dhimirka ee magaaladaasi Gabiile kadib markii ay awoodi weyday lacagta lagu daaweeyo dadkaasi walow uu isbitaalkan yahay mid ay wada jir ku dhiseen dadka gobolka Gabiile gudaha iyo dibadba umada gaadhsiiyo oo hadii alla idmeeyo la cabanaya madaxweynaha Soomaaliland ayaan la cabanaya anigana weydiiyaa cid aan dhex galo oo haysto oo kale oo qabanaysa ma jirto yaa cid la casaaltalo walaal male wehel kale male sidaasaan taaganahay waxaan hayaa ma jirto sida weeyaan oday la hadlayaan inaan ka halka bilaashkeed dadka lagu xirayo lagu xirayo joogna lama oran taas uu ku jawaab kii kale maalinka maanta aan la hadlayaan walaal waxaad yeeshaan inaan ka wakaajin gadina uu jajabinayaa kaalaya la soo qabto wuxuu yahay dumiyo umada iyo dawladda umada ilaahay iyo dawladda ayaan leeyahay garab galaan ay qabtaan ay xiraan wixii ay qaban karayaan ay qabtaan oo in badan maqnaa ilaahay dartii ha nagu soo caawiyo wax loo siiyana ma jiro cidna waxba uma taraso sanaya in badan waxaan 8 sano xanuunsanay xanuunkiisana dhakhtar wax lagu geeyay oo lagu tabibo lama hayo maamulka dawladda hoose loo qabtay ilaahay cabashadani dadka danyarta ayaa ku soo beegmasa waqti ay maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiile ku foogan yihiin xafladaha iyo ololaha xisbiyada isla markaasina ay iloobeen gabi ahaanba dadka danyarta ee mas'uuliyadda adag ka saarnayd Sakariya Nuux Ibraahim warbaahinta Raya TV gobolka Gabiile.